aan idin warramo war idaacadahan ka dhageysaynahay nagala tag war maxaad ugu celinaysaa noo warramee war nadiifa googliga la kale war kale u suban hayte warkaygu waa war weyne i dhageysta haddii alliin alla yahay warkaaga maakiil way noo sheegbo Soomaalidu wiil iyo ma weyn hooyo waalida weligood waxbay qaban jireen labada waaxood kaalintoodii waa buuxiyeen waafiga ahayd waa weynkiyo waxgaradkiyo kuwii hor ugu wootaysay waa yeeladii baa gabiyo way aragii adeeradaa lunsane way arag iyo way yeel sooma dhawaan dhalinyaro qurba jooga baa u talisa dalkan war ma haysiine waqooyi hilaa koonfurna waa gugacday shib iska dhig xildhibaanadii shalay uu sheegay goodax barre ee uu yiri waa shabaab dul yaraa tilmaamahooda soo helay waxayna kala yihiin xildhibaanka surwaalka kafeega wata xildhibaanka shaatiga giirgiiran iyo okiyaalaha wata midka shaatiga buluuga ah iyo sarwaalka madow wata midka madaxa xiiran ee gaaban midka dheer oo xoogga leh quuqlaha fatashaariga wata shalmad madowda dheer ee quusan midka hindisyada badan waana caan midkaasi ogaada miskiin lamoodka garaaraha leh gaabka aanan hadlin weji kaduudka koofida qaba iyo midka meesha dambe fadhiista mar kasta intaasba waa shabaabaa la yidhi war xildhibaanka sii socdan xageed uga reeb kan albaabka soo galaya si xaal looga taga warkan jubbud midowta inka jarta mooshiidina oo caamka ilaa hadda dhar iyo muuqaalaad noo sheegtay wax la garto oo dhaba ma aadan sheegin aduu golaha shacabka miyaa dad kale ku aragtay war ma hayside xildhibaanada aad sheegaysiin qaaraa maanta wasiiro laga dhigay hadda xildhibaanadii wasiirada ahay waa sii bateena ogaada war waxa maanta wasiirada laga dhigay waa 3 xildhibaan mid hore wasiir uu ahaa labaana ku soo korortay war anigu waan yaabaye qofku inuu xildhibaan iyo wasiir noqon karo horaan u ogeyne xildhibaan iyo laba wasiirna ma isku noqon karaa war lanka shakhsiga lama baasboor masluwaalada koro taas ama leeyo imisaan waxa idin sheegeen war qorshahan waran iyo gaashaana la yiraahdo waana difaaca ka hortaga mooshinada ariya waxa difaacaya qaraxida ka hortagaya waa ciidanka booliska Soomaaliyeed xalayna waxay sheegeen god weyn oo ku yaala ceelasha inay ka soo saareen kaydka hubka ee shabaab wargadka waxa laga soo saaray Sheekh Caldeer mugu jiray hadda General Sakiya waxay sheegtay in wax alla wixii ay qarax iyo miina iyo hub shabaab heesteen gacanta looga soo dhigay war General Google hubkan ay sheegtay ee laga soo saaray dhulka hoostiisa ma Google maapka ayaa lagu ogaaday warnimayo waxa la yiri shimbirtii dab qaadaaba waa bootin dheer tahay aqalkeedii inay soo gubtaan looga baqayay baarlamaanka nimankii ku jiray oo la celin waayay shabaab baa ka buuxay dhahan xarunta teenaah ka xabsha 4.5 baad ku qorateen intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin ariyadaha qolihiina warka badan waa idin digaa ayaamaan shaqo joojina soo baxday General Google wuxuu yiri saxaafadu ma tagi karaan meelaha qaraxyadu ka dhacayaan gudoomiyihii degmada Xamar Jajab oo mugga hore saxafi ahaayo ka waramaya shir abniga looga waramayana wuxuu yiri jagbointiyada muddada ciidanku joogo way yar tahay ka kadibna shaqadiyaa laga joojiyay war kale soo gaarayna wuxuu leeyahay aamin ambalaasna ma tagi karto meelaha qaraxyadu ka dhacayaan mugga kii dhaawac ma dhiig baxo dhinto inta dhimatanayaan qof laga ogaanin mugga arrintu waxay tagtay ha arkin ha maqlin hana sheegin war afka hirooy mas afgooyan baa dheega jirnay hatan handhooga hirooyn ninka daray arag maqal afkana xiro miyaadan maqli jirin af la xirta shabaaban ku nace igala tag war aragii yaaba la isku diidan yahay saxaafadu yeysan tagina lagu yiri General Google ma wuxuu yiri waxyaan la arkin waxna yaan la sheegin war gudigii dastuurka oo Cabdi Qaybdiid oo hogaaminaya waxay tageen Kismaayo Axmed Madoobena maanta uu la hadlay wuxuu yiri dastuurku waa inuu kala cadeeyo nin walba awood uu leeyahay keegana oo meel ku sheegaa oo awoodeeda uu cadeeyaa warnimiya war ma haytan madawiina lafta gareangeega kursiyay way bedeli hal bedelo maylka bedeli ka saasan ah bilaamay fawsiin leeyal lika bedeli unina may sugaanay hadii reer koonfur galbeed ana ilin trino lanku wala awro Mansuur lika fadheesi aku haysta morning uu fahilibkaad lama helaaye war kursiga wasiir xash ka dhinto maanta wasiir loo magacaabo sadad badna waxa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada loo geeyay afayeenkii xukuumadda waayaan xildhibaan Sadiq Warfa nimayo jabhadiga Soomaaliya ay 3 sano ka hor ka gudubtay soo laabtay war 30 sano ama jabhaduna haysata xabeenta u sheegay jabhadu hogaaminay in la yiraahdo Faysal Falaalu amaanta soo baxday ciidamada Soomaaliland la dagaalameen Jimcaale Calaalugna waa sugayna war Falaalugu ma faalshow cusuba war waa dagaalo cusub goorba waa tafaafulow war ma haysiina maanta garawaa shir la iskugu tagay Axmed Madoobe oo heefseedan ah haye maday isaaqo bariga haddana ma seefaad keentay war shirkii maamul goboleedyada ayaa ka dhacayo oo
ay ka qayb galayaan guddoomiyeyaasha baarlamaanada. war aaway maamulkii banaadir isteedoo lalahay waa la samaynaya. war arrintii xaaji muuse suudi waa la xaliyey. aroo maxaa la xalihaana kaaraana lambaabuur loo raacooyaan ku xidhi war ma haytana muqdisho mar hore lishal qiibi qiib may leehan koonfur galbeed qiibna may lee hirshabeelle qiibna may sheegatay banaadir isteed qiibna dawladda lahaylisi xuduudkaaga waa soo dhaaftay kala wareeg hayla warramina kala wareeg war ma kala wareegi kara EFC-gaaga ii sheeg. kala wareeg haddii kala furu waa lix kala wareeg feeraha ka jabay anigu furahaaga ma rabee war weli adigoo kala wareeg ku jira bugtii weli waa dhacaysaa maxaa tala war kala wareegtaas maanta degmadoodan wiil ugu dilay war yaa bugta dhacaysood sheegaysaan jenaraal google ma ogyahay antivirus baa loo dilayaa antivirus iyo google waa wada shaqeeyaan waxaan idin idhi markay urursan tahay qorshe la aqbaliyo leedahay af qura ayay dowladnimo waxa loo igmaday ka adkaan kartaa. waxaa idin idhi ilmacaana diina see loo celihaa awashirko ilmacaana diina see loo celihaa awashirko masaasadaa laga bedelaa warya maye waa la feeraa warya war naga xishooda waryaada naga taga allah idin ilaaliye